reer iyo waxba nagama dhexayn Wow. annaga waxaan badbaadinayna mustaqbalka adeer raalli ah oo adeer intaan ku dheganaa macalinka daaqaduu ka booday وحمزة واي waa xamsi cabdibarre waay marka نفط أرضي كوجا oradii بتاعي kugu aaminta wax kaloo la qaban kara ma laha male oo marka hadda Xamza wuxuu ka sheekeyn karaa xaaladaas inuu soo baray waa weliba ka daran soo arday wax barayo ah inuu naftiisa khatar gasho weliba xamza in badan wuxuu ka og yahay duruufaha oo magaalada ay ka soo marnay laanna arday wuxuu ka noqday mujamac umul qura oo duruufihii magaalada iyo siduu u soo koray iyo waxbarashadii ninkaan nin reer xamar u ahaa macalinkan isla soo kornay waxaan ka hadlaynay waa xaalad waxa lagu jiraa badbaadin aan dareemayno wadan macallimiinta ay iskuul dhigayaan sax waalidkiina uu hubaysan yahay allah ardayga qaar ay rag hubaysan dhaleen waa sax xaaladahaas iga sheekeen wallaahi dhacdooyin ayaan loo runtii waxaa soo marnay waayo oo aad u xanuun badan laakiin marmarka qaarkood kuwa ka sheekeeya allah nagu dalaala lahaa waxaan xasuustaa iskool waxaan joognay madiine ku yaallo iskoolka ugu horreeyey oo aan furnay cabdalla cazaab rag uu ku jiro walaalkay aan aadka u jecelahay muddana aan isla soo shaqaynay xamza ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa iskuulkaas dadka aan iskala shaqay jirnay ka mid ahaa maalin waxaan ugu qabsaday arday ka mid a ardadii aan wax baraynay ayaan damacnay inaan gacanta ul inta loogu dhufto in la garaaco markii la garaacay ardaygii waa cararay wuxuu u cararay ilaa ana gurigu wax ku ogyahay annagoo macallimiin aan iska naabaariyaala waa orodiyey guriguu tegey aabbihiisoo cankana u kuusan yahay jaadkuna ka muuqdo macaawistana dhan haysta laba canugoo yar oo qoryo wadatana la ordaayaan iskoolkii soo galay anigana galaasaan ku jiray markaasa waxaa war laga bilaababa ninkan miyaa ninka usha kugu maya kan maaha waa mid kale nin dheer waa anigana waa gaabnaa markaasaan yaabay ardaygii ul gacanta looga dhufto waa wuxuu u cararay aabihiis inuu qori kaasa soo u garaacday canugeenna ana lagu dili rabaa aabihiina waa soo raacay waa soo raacay weliba waxaa laga yaabaa hadda magac inaan sheego mar raba waa dad la yaqaanay sarkaal u ahaa waaga saraakiishii horey ahaayeen laakiin sarkaal qabiileed oo caan u ahaa markaasuu yidhi aaway ninkii sidaa yeelay markaas waxaan macallin adeero bal raalli aho wiilkaaga annaga markaan tumayno waa tarbiyeynayna cadaawad nagama dhexayn reer iyo waxba nagama dhexayn annaga waxaan badbaadinayna mustaqbalka adeer raalli ah oo adeer intaan ku dheganaa macalinka daaqaduu ka booday waa xamza waay waa xamsi cabdibarre waay marka naftu orday kugu aaminta wax kaloo la qaban kara ma laha male marka waayahaas dhibka badan leh ardaygiisi waaye waa ardaygiisii wax baraya waxaa kaloo aan la yaabay waagii aan wax barayna dadka dugsi hoose dhexaan ku wadi jirnay waadanbaa waxaan furnay iskool cabdullaahi ciise la yidhaahdo oo ah dugsi sare waay iskuul cabdullaahi ciise u galaynaa laakiin waalidka noocaas ah oo ilmihiisii iskuul soo diraya haddana qori la daba socda waxaa runtii meesha ka jira dhaqan xumada ah haddana waa ku nooleen mushkiladaha inta badan waxaa jiri jiray macallimiinta hadba meesha ay ku koreen ay macallimiinka ahaan jireen si u badbaadaan cala aqal waa naqaanaa macalinkan iyo waa reer hebel iyo masaajidda xataa aan laga khudbeeyo waa dadka deegaanka iyo dad yaqaana iyo reerka iyo macalinkoo reerka u badan iyo iskuulkii reerka iyo waxaasaan isku badbaadi jirnay oo marka hadda Xamza wuxuu ka sheekeyn karaa xaaladaas inuu soo baray waa weliba ka daran soo arday wax barayo inuu naftiisa khatar gasho weliba Xamza in badan wuxuu ka og yahay duruufaha oo magaalada ay ka soo marnay laanna arday wuxuu ka noqday mujamac umul qura oo duruufihii magaalada iyo siduu u soo koray iyo waxbarashadii ninkaan nin reer xamar u ahaa macalinkan isla soo kornay marka wax badan oo duruufo ah ayaan soo aragnay laakiin alxamdulilah ardadii maalintaas aan wax soo barnay maanta waxaa ilaahay mahadiisa inay madaxda waddanka yihiin